السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا ولاليال مقعي وعبد الله محمود. maanta waxaan qaadanaynaa casharkeena lixaad wuxuu ku saabsan yahay iibka. Markaan macmiil wax ka iibinayona laba qaab bay u dhacdaa. Ama inaan waxa weeye alaabta ka iibiyo oo lacagtii ka qaato, ama intaan waxa weeye aan alaabtii iibiyo. Marka casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay labadaas qaabkii aan macmiil alaabta uga iibin lahaa anigoo waxa weeye lacagta ka qaadanaya oo cash ahaan uga qaadanaya, iyo qaabkan macmiilka aan u diiwaan gelin lahaa qaabkii goortaan macmiilka alaabta intaan ka iibiyo laakiin aan lacagta ka sugayo deyn ahaan iga qaato. Marka intaan casharkeena u kala gadin bal waxaan fiirinaynaa balance sheet-keeni meeshii inoo marayay. balance sheet-kan wuxuu noo marayay waxaan haysanaa lacag cash wallet-keena inoo ku jira waa $3,000. lacagteenu ku leenahay macaamiisha waa $750 ina ka maqan. alaabta shirkadda taalo inuu ku shaqeynayno waa $9,200. marka total asset-keenu waxa weeye waa $12,950 weey asset-kii shirkaddu haysato. sidoo kale shirkadda waxa lagu leeyahay account payable-ka waa $2,250. halkan hoose waa equity-ga hantilayaashii rag kastoo lacagta u kala lahaayeen weeye. okay, markaan macmiil alaab ka iibinayo haddana aan lacagta ka qaadanayo qaabkee baan u diiwaan gelinayaa. okay, marka ugu horeysa waxaan soo furayaa customer, kadib waxaan tegayaa enter sales receipt. okay, kadib waxaan dhahayaa halkaan waxaan gelinayaa macmiilkan alaabta ka iibinaya. Matalan hadda waxaan ka iibinayaa Abdiqaadir Ahmed. okay, Abdiqaadir Ahmed quick add baan dhahayaa. waa customer-kaygi weeye, yacni dadkii lacagta iga iibsay alaabta iga iibsanayay. qaab noocee marka uu ku siiyay waxaan dhahayaa waa cash baan uga qaatay. itemku wuxuu yahay alaabtan gadaya halkaas u soo furaya. waxaan leeyahay kalluun buu iga gatay intee xabo oo kartoon oo kalluun wuxuu iga gatay 45 xabo kartoon oo kalluun. lacagtan ka qaaday marka uu cashanay siiyay waxa weeye waa $675. okay, save and close baan dhahayaa. okay, waa kan marka waxa bahasheedii iska bedelay. inventory-gii awalka hore 9,000 iyo xoogaa ahaa, hadda se waxa weeye 8,700 iyo xoogaa noqday. undeposit fund lacagta waxa weeye maqalka igu jiro qoladii saleska iibka ay hayaaneen waxa weeye waa $675. hadda waxa loo wareejinayaa qasnada loo wareejinayaa. sidoo kaleeto waxaa ku soo biiray akoon ah net income oo ah lacagta faa'iidada aan faa'iiday marka lafahayga laga reebo waa $225. okay, markaad macmiilkaaga alaab ka iibinayso oo lacagtana ka qaadanayso qaabkaasaad ku diiwaan gelinaysaa quickbook u diiwaan gelinaysaa. okay, haddana waxaan rabnaa inaan qaab deyn ahaan in macmiilka ku siino. okay, waxaan dhahaynaa great invoice baan dhahaynaa. okay, waxaan dhahaynaa waxaan siinay Said jaamacba waxaan siinay deyn siinay. okay, ma yaqaan quick add baan dhahayaa. okay, alaabta ka qaatay intee ahayd. okay, waxaan dhahayaa wuxuu iga qaatay 67 kartoon oo pasta. okay, pastadii baan soo bahalkeenayaa. okay, lacagta aan marka totalka aan ka qaaday waxa weeye waa $938. lacagtan waxa weeye lacagta yacni aan deyn ahaan ugu leeyahay Said waa $938 weeye. intaasoo deyna marka account receivable-kii bay soo gelaysaa. waxa isbedelaya kaliya account receivable-kii baa badanaya. inventory asset-kii shirkadda yaalana uu yaraanaya. waxaan ku arkaynaa balance sheet-keena ku arkaynaa. okay,
account receivable kan waa batay 1600 iyo 88 noqday. Inventory asset kanina wuu yaraaday oo 8000 iyo 80 dollar kaliya noqday. Marka qaabkaas weeye qaabka aan u diiwaan gelinayo markaan macaamilkayga aan alaab ka iibiyay ama anigoo ka qaadaya cash ama anigoo waxa weeye deyn ahaan u siinaya. qaabkaas aan u diiwaan gelinayaa. waxaan rajeynayaa inaad casharkii maanta fahanteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.